السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سو لابد وناكسن وبيجك كاها نلشة أنا ونوا فردوس عبد الله. مقال كان مانتو حاوق قصية إسلام عن من عدري من ديرت السوشيال ميديا أما با من ديرت تيك توك سوت عن من ديرت بحيين قدر أيان إذا كاك شريح الدونا فضلا سوق هذا كوب كاك شاها إن مسكح هذا الدكسو سيد جنة ودقيس مقال كان waxaan sidoo kale idinka codsanayaa muuqaalkan inaad u share gareysaan gabadha uu quseeyay ee la yiraahdo Kowsarliin aan isku soo laabano bariyan waxaan ka arkay social media meelo badan iyadoo la wareejinayo oo mar walba meel walba la iga horkeenayay gabar yar oo ku nool dalka Kenya Kowsarliin waxaan u ahay follow TikTok ilaa iyo muddo fog xilli aad u fog adiga ilaa 3 marka Kowsarliin in muddo ah waxaan kamid ahaa dadka ku taxan aan badhihi kara wax badan social media darteed wax badan ayaa nolosheeda iyo marxaladaha ay soo martay halkaas kala socday iska adduunyo maalin walba waji cusub ay kugu qaabishaa maalin waad faraxsan tahay maalin waad murugaysan tahay maalin ba xaalad gooni ah ayaad ku jirtaa nolosha oo dhan ayaana taas ku salaysan kaliya waxa dadka caanka u dheer in dadku ayagu ay la wadaagaan mar walba xaaladda ay ku sugan yihiin haddii jawi farxadeed ay ku jiraan farxadda ayay nala wadaagaan maalinta ay murugaysan yihiin murugtooda ayay nala wadaagaan maalin horumarkooda ayay nala wadaagaan saas darteed ayaan wax badan xaaladeeda ka arkay waxaan rabaa Kowsarliin in aan tala siiyo tala walaalnimo in aan siiyo tala qof ka weyn tala waaye arag in aan siiyo waan ugu dambaysiin doonaa marka Kowsarliin gadaal ayaan talada aan siin doona aan gadaal ayaan u dhiganaya balse marka hore waxaan ku hormari doonaa mandheerta social media qoliyaha leeyahay waxaan rabaa maanta in aan karbaash xalaala u diro islaamo aniga aan ugu magac daray mandheerta social media islaamankaas waa islaamo ka qaraabta TikTok waxay leeyihiin page waxay ka shaqeeyaan inay dadka isku diraan qabiilada isku huriyaan dadka isjecel kala geeyaan u kala rufiyaanaan fikrado qaldan gudbiyaan ayagoo cidna aana u dirsan howlahaas oo dhan waxyaabaha ugu yaabka badan maalin walba ayaga la yaabkooda maba dhamaadaba waa stereotype wax la yiraahdo waa wax soo laalaabto waay maalin walba waxa ay ku aqligooda waxa uu ku cabiran yahay xaaladda markaas taagan waxaa la haystaa gabadha la yiraahdo shaadi sharaf jug shaadi sharaf ay caynayaan waxaa la haystaa garaadkooda saqiirka waxa uu la egyahay in ay gudbiyaan fikrado salbi ah fikrado qaldan ay aan sal iyo baar lahayn maalin walba drama cusub maalmo dhaweyd waxaan aad u arkayna ayagoo haysta ku dhagan Rayaan Bajaaj oo kale tusaale ahaan way ku dhaganayeen ayagoo group dhan ah way isku bihaysteen in gabadhaas ay sawir qaldan ka bixiyaan aflagaado ay nooca u geystaan heer ay gaartay in iyada ay life-kooda la soo korto oo ay dhinacooda kala qabsato mayga waxyaabo noocaas ay ka shaqeeyaan maanta waa meeshii oo kale iyo ka sii dara waxa iiga yaabka badnaa ee aan groupkaas ku arkay waa in ay yihiin in ay maalin walba gabar ku taagan yihiin why ayaga og because way ciilan yihiin malaha horaa loo soo dhibay nolosha lagu soo cariiriyay ciil ayay u qabaan dumarnimada malaha marka mandheerta social media maalin walba gabar ayay korka ka saaran yihiin nasiib daro inta ugu badan ee aad aragto waxa ay ku taagan yihiin waxa ay fadeexad ka faafinayaan waxay korka ka saaran yihiin waa gabar kaleetood oo Soomaaliyeed amaba waa hooyo kale oo Soomaaliyeed waxaan u fahmay in ay yihiin dad low class ah dad nolosha ka dhacsan islaamo ay qaarkood 5 mar 6 mar 7 mar la soo furay nolosha soo wareerisay naxariis ka tagtay jacayl aan soo arkin ilaan wax kale tood oo lagu safeyn kara male waayo qofka markuu jawi degan xaalad degan nolol degan ku nool yahay wuxuu fikiraa waxyaabo positive waxyaabo horumar keenayo waxyaabo talooyin keenayo wax hadduu arko xaalad kacsan waxa uu isku dayaa inuu ka gaabsado ama waxyaabo talo macquul ah inuu ka dhiibto
waxay live soo saarteen Kowsarliin oo xaalad ku furan tahay maalmahan la soo dhaafay ninkii iyada qaba ayay live soo saarteen markaas ayay wuxuu leeyahay waan furayaaye dhageysta mood iga gala whatsappka ugu dir mid ugu roona waxay leedahay whatsappka ugu dir furiinkeeda mid waxay leedahay war mood ka gala wiilka aan ka dhageysanay naagtu ma istaagshay meesha noocaas oo kala dadkaas waa disgusting fear waxaa lagu leeyahay waa hooyooyin badankood waa hooyooyin caruur ay leeyihiin oo ay rabaan inay caruurtooda nolol fiican helaan nolol qurux badan ku noolaadaan farxad helaan dadka noocaas farxad ma helaan dadka ay la nool yihiin farxad ma siiyaan just waxa adiga aad rabtid noloshaada inaad hiigsatid u ogolow qofka walaalka ah qofka kaleetood gabadha kaleetood ee Soomaaliyeed u ogolow cadaawada ay u qabaan Kowsarliin waa maxay ma garan karo waa cadaawada waxay la mid tahay cadaawada ay Rayaan Bajaaj waxay live soo saarteen Kowsarliin oo xaalad ku furan tahay maalmahan la soo dhaafay ninkii iyada qaba ayay live soo saarteen markaas ayay wuxuu leeyahay waan furayaaye dhageysta mood iga gala whatsappka ugu dir mid ugu roona waxay leedahay whatsappka ugu dir furiinkeeda mid waxay leedahay war mood ka gala wiilka aan ka dhageysanay naagtu ma istaagshay meesha noocaas oo kala dadkaas waa disgusting fear waxaa lagu leeyahay waa hooyooyin badankood waa hooyooyin caruur ay leeyihiin oo ay rabaan inay caruurtooda nolol fiican helaan nolol qurux badan ku noolaadaan farxad helaan dadka noocaas farxad ma helaan dadka ay la nool yihiin farxad ma siiyaan just waxa adiga aad rabtid noloshaada inaad hiigsatid u ogolow qofka walaalka ah qofka kaleetood gabadha kaleetood ee Soomaaliyeed u ogolow cadaawada ay u qabaan Kowsarliin waa maxay ma dheerta TikTok haddii aad aragtid qolal ay ku jiraan ha taageerin ha dhageysanin waayo waxa ay gudbiyaan sun waxa ay buufiyaan waa ayaga dhan waa wada boosneer socda waa fikrado waxay gudbiyaan xanuunsan laga yaabay qaarkood badankood inay yihiin dad mental xanuunsan dad depression ka soo daalay dad ayagoo dhan xaalado ku furan tahay oo raba frustrationka nolosha ay ku sugan yihiin inay dadka kaleetood ay sumeeyaan wayna u badan tahay amaba waaba xaqiiq inay xaalad noocaas yihiin taas waa taas ha support gareynin page-kooda fadlan report gareeya waayo waxa ay wax idinku yihiin waa adinkaa daawado adinkaa sii faafiyo waa la duubaa waa la sii gudbiya waa la sii dadka noocaas oo kale fariimahooda dhulka lagama soo qaado waayo waxaa sii badanaya dad kale oo xanuunsan oo sidoodoo kale u fikira intaas kadib waxaan rabaa inaan talo walaalnimo siiyo talo waaye aragnimo ah Kowsarliin Kowsar waxaa tahay gabar qurux badan waxaa tahay gabar karti leh noloshuna ay u cusub tahay noloshuna kuma koobno maanta iyo beri ama kuftin yar hal maalin aad kuftay inta aad nooshahay waad kacaysaa waad kufaysaa waad ooynaysaa waad farxaysaa waad qoslaysaa waa nolosha asaaskiyaadkeeda waa nolosha ayaa saas ku salaysan suubanaha ayaa dhibaatooyin soo arkay oo nolosha marxalada badan lagu adkeeyay marka abaay waxaan ku leeyahay waa talo walaalnimo fadlan isku day inaad social mediaha waxoogaa break yar ka qaadatid ama ugu yaraan adigoo xanaaqsan adigoo tiiraanyaysan adigoo murugsan in aadan soo gelin waxaa intaasoo dheer oo aan rabaa inaan talo kale kuu sii raaciya kaliya waxaa la isdheeryahay dadka badankood noloshooda waxyaabaha xanuunka leh dadka lama wadaagaan saas ayaynu ku fiican tahay intaad xirxiran tahay albaabadaada kuu xiran yihiin sirtaada kuu xiran tahay xantaada la faafinayo way yaraanaysaa social media sidiisaba faa'iidooyin waa leeyahay khasaaradiisa ayaa badan dad badan ayaa sameynaysaa saaxiibo fara badan ayaa sameynaysaa dad xun oo fara badan oo cadaawadna waa ku abuurmayaan kasoo qaad anigoo hadda aadan i aqoon ayaa inta kaala soo talinayo macnaha waxyaabaha social media laga dhaxlay ka mid tahay positive ahaan u qaada taladeeda walaaltinimo abaay adigoo xanaaqsan ha soo gelin social media adigoo ooynaayo ha soo gelin mar kaleetood waan kula damqanaynaa laakiin dad kulliga guurkana sidiisaba waa god
adigoo gacanta geliya god mugdi ah adoo gacanta geliya ani ma dhihin horaa loo dhahay wuu xumaan karaa luul ayaa kaaga soo bixi kara mas ayaa kaa qaniini kara ama jilac marka nolosha ayaa saas ah kan hadduu maanta kaa xumaaday maba ku istaahilaba waayo hadduu nin fiican yahay familkaaga ayuu intuu u tago uu dhihi lahaa gabadhan way iga furan tahay waa heshii weyne hadduu nin fiican yahay qol naaga ay leeyihiin oo nolosha ka dhacsan oo mandheer ah intuu soo koro meeshaas waxaan maqlayni kama sheegi lahayn marka haddii aad uur leedahay oo ilaahay ilmo ninkaas idinka dhex beeray ilmahaas yarkaa qaladka ninkaas uu kuu geystay wax dembiya kuma lahan adigoo dhibaato laguu geystayna wax dembiya kuma lihid waxaa lagaaga baahan yahay ammaanadaas ilaahay calooshaada uu geliyey inaad xafidatid inta marxaladda stresska aad ku jirtidna in aad nasatid